haweeneyda ay walaalaha yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo iyadana lagu magacaabo Kim Yong Jan ayaa ka digtay in haddii Kuuriyada Koonfureed ay howlgal militari ku soo wajahdo ay Kuuriyada Waqooyi ku argudan doonto weerar xagga nukliyeerka ah. hadalkeedan ayaa u muuqday in talaabo militari oo dhinaca Kuuriyada Koonfureed ay ugu timaado durbadiiba ay ugu jawaabi doonaan hubka nukliyeerka ee sida baan wax u gumaada. Kim Yong Jan oo inta badan aan ka soo muuqanin fagaarayaasha iyo warbaahinta ayaa hadalkan kulul jeedisay xilli maalmahan ay sii kordhaysay hadal haynta ku saabsan xiisadda ka taagan gobolka. haddii Kuuriyada Koonfureed ay doorato in ay dagaal nala gasho ciidankeena nukliyeerka gacanta ku haya waxay fulin doonaan shaqadooda oo aan ka soo waabasho lahayn, ayay tiri mar ay la hadlaysay warbaahinta ku hadasha afka Kuuriyada Waqooyi. Kim Yong Jan hadalkeedan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay sii kordhayso saameynta uu dunida ku sii yeelanayo dagaalka uu Ruushka ku ekeeyay waddanka Ukraine. walaac xooggan ayaa ka jiray dunidan wixii ka dambeeyay markii uu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu amar ku bixiyay in heegan la geliyo gantaaladiisa nukliyeerka. haddana waxaa walaaca sii xoojin kara hadalkan ka soo yeeray Kim Jong Un walaashiis. haddaba waa tuma Kim Yong Jan maxaase ka naqaanaa awood intee dhan ayay leedahay? jagadee ayay ku habboon tahay Kim Yong Jan in ay ka qabato qoyska xukunka haya? maxay isa tahay waqti xaadirkan shaqada ay qabato? su'aalahaas oo dhan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijkeenan. fadlan inta aanan u guda gelin mowduuca warbixinteenan waxaa iga xasuusina haddii ay tahay markii kugu horreysad aragto Fogaan Arag TV inaad falowna soo dhahdo oo aad like saarto, sidoo kalena aad sii share garayso muuqaalka si uu gaaro saaxiibo sida adiga oo kale u wanaagsan. wixii aragtiyo iyo fikraadaysan xagga commentiga waad nagula wadaagi kartaa. Ramadaan Kariim. waa tuma Kim Yong Jan. haddaba maxaan ka garanaynaa oo aan ka naqaanaa haweeneyda ugu saameynta badan uguna awoodda badan dalka Kuuriyada Waqooyi, isla markaana ah gabadha keliya ee la dhalatay hogaamiyaha 35 jirka reer galbeedkii oo dhanka qeylisiiyey ee Kim Jong Un. sanadihii ugu dambeeyay Kim Yong Jan ayaa soo ifbaxday oo noqotay shakhsi muhiim ah, qodob dhexaadna u ah awoodda Pyongyang. waa da'da ka yar hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, waana qofta keliya ee ka mid ah walaalihiisa Kim, misana ay sida aadka ah iskugu dhow yihiin. gabadhan Kim Yong Jan ayaa dhammaadkii bishii la soo dhaafay ee September la arkayay iyadoo si aan caadi ahayn u xayeysiinaysa guddida ugu sarsaraysa dalka Kuuriyada Waqooyi ee go'aanada adag u gaara, sida laga baahiyay warbaahinta afka dowladda ku hadasha ee dalkaas. waxaa la aaminsan yahay in ay ka mid tahay dadka naadirka ah ee uu aamino hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. sanadkii la soo dhaafay sirdoonka Kuuriyada Koonfureed waxay ku tilmaameen in ay tahay qofta labaad ee ugu awoodda badan Kuuriyada Waqooyi, balse shaqadeeda rasmiga ah ee ay dowladda ka hayso marnaba lama cadaynin maadaama ay adag tahay in sirta dalkaasi la helo. Kim Yong Jan ayaa markii ugu horeysay indhaha caalamka soo jiidatay sanadkii 2018 markaasi oo ay ka mid ahayd wafdigii ku helinayay Kim Jong Un ee booqanayay Kuuriyada Koonfureed. waxay kaloo qayb ka ahayd ergadii ciyaaraha Olombikada xilligaasi oo kooxihii ka kala socday koonfurta iyo waqooyiga ay hal koox noqdeen. waxay sidoo kale 2018 la shaqaynaysay misana ay barbar taagneed walaalkeed Kim Jong Un xilli uu qaaday waddo diblomaasiyadeed isagoo la kulmay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, iyo kulankii muhiimka ahaa ee uu la qaatay madaxweynaha dalka Mareykanka xilligaasi ee Donald J. Trump. Kim Yong Jan xiriirka dhow ee la leedahay walaalkeed iyo doorka heerka sare ah ee ay ka ciyaarayso siyaasadda ayaa mar kale soo ifbaxay bishii Abriil 2020 markaasi oo ay walaalkeed Kim Jong Un uu ka maqnaa fagaarayaasha dadweynaha. Kim Yong Jan waxa ay ka mid tahay dadka ugu sareeya ee la saadaalinayo in ay bedeli doonaan Kim Jong Un. doorka gabadhan ee siyaasadda Kuuriyada Waqooyi Kim Yong Jan ayaa sare u kacday bishii Oktoobar 2017 markaasi oo loo dilacsiiyey in ay ka mid noqoto guddida dejinta siyaasadda xisbiga shuuciga ah. intaanan jagadaasi loo magacaabin waxa ay agaasimo ku-xigeenka waaxda barobagandada, jagadaasi oo la rumaysan yahay in ilaa iyo hadda ay hayso isla markaana ay ka shaqayso sare u qaadidda sumcadda dadweynaha uu ku dhex leeyahay walaalkeed Kim Jong Un. haweeneydan ayaa sidoo kale ka mid ah shakhsiyaadka ku jira liiska cunaqabataynta Mareykanka, waxaana lagu eedeeyay tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ka dhacay Kuuriyada Waqooyi. waxay arrintan micnaheedu tahay in muwaadiniinta Mareykanka aysan wax xiriir ah la samayn karin
Kim Yong Chan hanti kasta oo ka taala dalka Mareykanka ayaa sidoo kale ah mid la xanibay. awood intee dhan ayay leedahay Kim Yong Chan way adag tahay in la fahmo nidaamka awoodda Kuuriyada Waqooyi sidaas daraadeed way adag tahay in la cabiro inta ay dhan tahay galangalka dhanka siyaasadda ee ay leedahay Kim Yong Chan waxaa jiray warar la isla dhexmarayay oo sheegayay in ay isguursadeen wiil uu dhalay Cheo Ryong-hee oo ah xogayaha awoodda badan ee xisbiga shuuciga isla markaana ah ninka labaad ee ku xiga Kim Jong Un haddii ay dhab tahay arrintaasi waxay markaasi siinaysaa Kim Yong Chan miiqaam muhiim ah balse Oliver Hoffman oo ka tirsan wakaaladda NK News ayaa yiri waxaan u malaynayaa in ay caadi tahay in la yiraahdo maadaama 30 jir ay tahay taasi oo ah da'an saameyn badan ku dhex lahayn Kuuriyada Waqooyi in galaangalka ay la leedahay inta badan uu yahay mid ku tiirsan walaalkeed haddii ay noqoto in la helo qofka bedelaya Kim Jong Un xiriirka qoyska ayaa noqonaya mid muhiim ah Kim Jong Un ayaa la rumaysan yahay in uu caruur leeyahay balse waa kuwa wali aad u yaryar maadaama ay Mrs Kim ay xubin ka tahay dadka leh dhaxalka warbaahinta dawladda Kuuriyada Koonfureed ayaa si sahlan qiil ugu heli kara in ay awood ahaan la wareegto balse dhaxaltooyadaasi marka la eego haddii aan iyada la soo xulin hogaamiye kasta oo kale oo la soo xulo waxa uu arki karaa qof la loolamaya ayuu yiri Fyodor Terkis oo ka tirsan jaamacadda Kookmin ee ku taala Seoul in ay la wareegto jagada hogaamiyaha sare Kim Yong Chan haddii kale waxay luminaysaa dhammaan awoodaha iyo suurtagalnimada xitaa in ay nafteeda ku weyso ayaa macquul ah jagaday ayay ku habboon tahay Kim Yong Chan in ay ka qabato qoyska xukunka haya Kim Yong Chan waa gabadha ugu yar carruurta hogaamiyihii hore ee Kuuriyada Waqooyi waxay isku hooyihiin Kim Jong Un iyo Kim Jong Chol oo isaga la rumaysan yahay in uusan xil sare ka hayn nidaamka awoodda siyaasadda ee dalkaasi waxay dhalatay sanadkii 1987 waxayna 5 sano ka yar tahay walaalkeed Kim Jong Un oo iminka xilka haya waxay wax ku wada barteen isla markaana ku noolaayeen magaalada Berni ee dalka Switzerland sida ay sheegeen saraakiisha iskuulka ay wax ka baran jirtay ee dalka Switzerland in ay ahayd gabadh si weyn loo ilaaliyo isla markaana maar ay dareentay qabow yar inta iskuulka laga saaray loola cararay isbitaal si halkaas loogu soo dabiibo ugu dambeyntii waa maxay shaqada ay qabato hadda Kim Yong Chan ama maxay tahay shaqadeeda tan iyo sanadkii 2014 shaqada Kim Yong Chan waxay ahayd inay difaacdo sumcadda walaalkeed isla markaana waxay door mug leh ka qaadanaysay waaxda propagandada taasoo loo sameeyo xukunka uu ku fadhiyo walaalkeed waxa la sheegay in ay iyada maarayso dhammaan howlaha uu soo baxayo fagaarayaasha isla markaana waa la taliyihiisa dhanka siyaasadda doorkeeda ku aadan suurtagalnimada in ay tahay qofka bedelaya walaalkeed ayaa soo baxda mar walba oo laga dayriyo xaaladda caafimaad ee walaalkeed Kim Jong Un waxaa dhawaan soo ifbaxday warar la isla dhexmarayay oo sheegayay in uu xanuunsanayo Mr Kim balse markii dambe waxaa la arkay sawiradiisa isaga oo xariga ka jaraya warshad taasi oo meesha ka saartay shakigii laga qabay caafimaadkiisa waa hagaag saaxiibayaal intaasi waxaan ku soo afmeerayaa warbixintii koomeed aan kaga hadlayay awoodda ay ku dhex leedahay Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un walaashiis Kim Yong Chan fadlan waxaa iga xasuusinaa haddii ay tahay markii kugu horreysay aragto Fogaan Arag TV inaad falowna soo dhaxdo like saarto sina share gareeyo la wadaaga asxaabtaada si ay noogu soo biiraan saaxiibo sida adigoo kale wanaagsan wixii aragtiyay fikir iyo talaadaysan wad nagula wadaagi kartaa xagga commentiga hana ka ilaabin inay YouTube-ka Fogaan Arag isagana aad saarto subscribe-ka mahadsanid